dad maaragtay aniga role models ii ahaa codkooda aan dhegaysan jiray banigii kuu sheegay ku iri cabdinuur sheekh maxamed isxaaqaa saaray bandhiga raadiyaha heesta iskuulka la iiga soo diray axmed xasan cawke horta wuxuu ahaa the best friend of mine walaalka iigu fiican uu ahaa wuxuu ahaa qof aan isbedel soomaalinimada inuu iska bedela aanay ka muuqanin macnaha kama wada ragga kale way ka muuqatay laakiin waxaan noqonay dad close ah axmed xasan cawke wuxuu ahaa qofka tala kasta isiiya haddaan umulaayo in lasii diyaarsado boorsada oo dharka lagu sii rito qofka ii sheega waaye because sakariya yara halkan ugu dhashay isaga ilaahay ha u naxariistay walaalkay waxaan noqonay dad partners ah oo macnaha barnaamijyada wada sheega rumors fara badan bannaankana laga mariyay waa isqabaan waa isjecel yihiin waa isixeen of course waa isjecelnaa dad walaalaha isjecelaan nahay ma garatay haddaan ishelaynin way israbnay laakiin markaa anagu weligeena iskumaanan dayan inaan isguursano iyo inaan isshukaansano iskuma dayan ma fahamtay wuxuu ahaa ninka keliya oo gurigayga garanaya wuxuu ahaa ninka keliya oo markuu israaho domestic violence badanaan maray iyo shaqaaqooyin oo guri iyo waxaasaan maray ka farxi markuu israaho xitaa intuu maaragtay lacagta baqshad geliyo walaalnimo iyo sadaqo ku qoro waa walaalka axmed yare ii geliya meesha jijiidka oo computerka ii geliya ayuu ahaa ilaahay maanta waa iga hooseeyay ilaahay wanaagaas faraha badan leh horta walaalkay ilaahay ha ku jannada ha ka waraabiyo oo ilaahay hortiisa ha ka siiyo because qofka wanaaga uu adduunka ku samaysto aakhiro ku helaa okay maxaa dhacay haddaba dhibaatooyin fara badan baa BBC-da aad kala kulantay oo aan kana maqlay adiga iyo weliba dadka aad soo wada shaqayseen iyo meelo kale adigoo laftarkeeda ka sheegaya waxaan rabaa adigoo maanta si guud uga wada hadlaya sidii xaqiiqadu ahaydna uga hadlaya maxaa kamid ah odhan kartaa markaad BBC xasuusato dhibaato ay adiga kugu soo dhacda BBC markaan soo xasuusto ma soo xasuusto dhibaatada hore kama soo xasuusto proud baan noqdaa inaan xilli wanaagsan ka shaqeeyay inaan dad qiimo leh يونس علي نور الله يرحم الراحمين هذا النوح دول سعيد علي موسى عبد السلام هريري dadku waxay malaynayaan nin weyn yahay laakiin igama weyna aniga daano iga yaray maxay ahaytoon axmed xasan cawke cabdinuur sheekh maxamed isxaaq maxay ahaytoon maxamed xaaji siraad maxay ahaytoon dalmara oo markaas sii tagay laakiin diimaha xaggeeda proud baan noqdaa sinna sad baan noqdaa because ma rabin inay noocaas ku dhamaato bishaaray aniga waxa ay wada helay laba abuse actually mida abuse ah midka kala haara wuxuu ahaa waxa la yiraahdo bullying shaqada waxa ugu hela bullying dadkan hadda ingiriisiga bartay wadankan ila jooga ama Soomaaliya joogto bay ka naga ingiriisi badan bullying waxa waaye qofka oo mar walba la handada la cabsi geliyo mar walba laga carayso mar walba la taba taagnaado that's a bullying إلا نلشيس لا نعسيو gurigana waxa igu helay wax domestic violence la dhahayo shaqaaqada guriga anigaana wadanka waxa imid aan nin qaba hal canug ninkaas u soo dhalay labadeedii inana horan ka soo sheekeeyay hooyada iyo hayso isla canugii yaraana 1 month uu jiro ayaa uu yeeshay kay canugii oo 4 bilood jirana waa ka soo tagay ana uurkii ma ya canugii 5 bilood jiran ka soo tagay uurkeyguna 4 bilood ya kii kale inanka uurkiisa leeyahay halkan aan ku dhalay ninkayga intaas u dacwoonayay qabay haday jiraan dad barnaamijka gadaal kala qabsaday this story is about me ana igu saabsanta kuma saabsana ninka laakiin aniga dhankaygan ka sheekeynaya walaalkayga saddexda caruur aan u dhalay horta watan ku sheego oo anu frinkan dibsanay oo wali dhaqankii Soomaalida ah ugu jiray marka horta waan adkaystay hadda inta saddex ka dhala joogay oo dabeecadaha qalafsan anoo arkay hadana ku joogay laakiin dabeecadihii qalafsanaa waxba soo dhex galo oo in Yurub loo soo hayaamo ayaa soo dhex gashay isna inuu iska soo dhoofo warabana ninkayguna ii yimaado warabay halkan markaan iman qof waxaan ahaa BBC soo qaato qof cid la taagan ma ahayn dad kula talinaya jira marka BBC-da dhexeeda oo family-ga guriyaha sida loo kireysto ku sheegay dadkaas oo dhan waxay ii sheegayaan wadankan qof ilmo haysto oo inoo kaligiis noolaada inay adag tahay runtoodayna ahayd wadanka marka imaano Soomaalida oo dhan say sameeyaan lacagaha waxaan ku xisaabinaa annaga dollar inta pound intaan dollar u bedelnaa dollarka shaqo Soomaali u bedelnaa wixina la weynaadaan laakiin waxa aad qaadanayso marka halkan ku isticmaalayso wax ay yihiin ma laha nolosha caadiga ay la mid yihiin wadanka markaan imaaday waxay noqotay in la yiraahdo waa inaad horta reer ban hostelka BBC-da markaan ka baxay
reer bay noqotay in qolka kiraysto uur baan leeyahay qof uur leh oo meel ay ku nafista rabto meel dharka kala dhigata rabto reer ma ku dul nool ma la noolaan karto inkastoo lacag bixinay waxay noqotay in guri kirayso sukus odagii ma ii keenay hadaan guri kiraysan lacagtii waa yartaa bishaaro 24 sanadkeena lagu qaatay anaga markii hore 24 oo barrier waay marka barrierkaas waxa loo qaybinayaa maxay ahaatonay sanadka inta uu ka kooban yahay 365 hadana waxa loo sii qaybinayaa hadana canshuura laga sii jaraa oo laba tax income tax waxa ku soo gala canshuurtoodii national insurance contribution oo lacagta dadka ay dhaqaata la siiyo صح okay intaas markii lagu kooxay hadana waxa bixinaya guriga council taxkiisi guriga canshuurtiisi dawladda hoose guriga ka xaqaysay mata qashinka ka gurayso jidka maarata bilaa waxa aad maraysay wixii dhan baa bixin wixii dhan waa aniga council tax waa la bixin jiray Soomaaliya laakiin anigu wax ba bixiyo way ugu cusbaydo oo wax wadan shisheeye ku noolaado oo hooyo ii joogin aab ii joogin oo qof ii joogta aan jirin oo hooyada carruurta iga haysa saddex kale iga haysa kii kale aan dhalay xagee geynaya marka anna waxaan iska ahaa dadka sida sharciga marwaba iskaga noolaadaan jeclo sharciga ka baqa احترامنا مرنا دينعنا waa ka baqa dhinacna waa ixtiraama ilaa hadda saasaan ahay ma jecli sharci inaan galo ma jecli inaan crime iyo maarata dambi iyo wax in la igu soo helo marka waxay noqotay arrinkayga in dad ii haayaan ajnabi oo lacag badan qaadanaya marka wax soo harayaaba iska yar marka waxay noqotay in anigu ku noolaado maaragtay tuna iyo bucket beans iyo waxa macna lahayn qof umulaho cunug dhashay ma fahamtay okay adagiyaa yimid adagi markuu yimid halkaa isla waad nafisaysaa dagaalaa bilowda kugu bilaabay bilaaba because aniga waxaan ahay awrki cidaan ahay awrki reerkaan ahay reerka miyiga degan awrka u dhaantaga wuxuu u sameeyay aniga awrki reerkaan ahay asaguna haduu shaqaysanayo looma diidine sharciga waxa laga soo siiyay aeroportka ka national insurance number waa inaad samaysto markaad sharci helayso shaqo raadsanayso national insurance number ka kolba waxaan u samaynayaa ballan uu ka boodaya ma rabi inuu taga ma rabi shaaninkan qorshe kale u dagsan anu qorshahaas lama ogi kamana midihi okay waxa dhacday markuu yimid hadana inaan uur yeeshay gabadhayda Sulaaqa uurkeedi ilaahay ku caasiimaayo walaalkayga ilmaha iga dhalna ku caasiimaayo like this what happened to me halkan ka bilaabata marka hadaan imaado shaqada oo aan imaado bush house booskaygii bush house oo xilligaas muhiim ah magaciisa inaan sheego bulin ila fadhiya gurigii hadaan tagana ninkii dhib ila fadhiya laakiin de booska qod kasta og meelo fara badan waa Yusuf kaligayna maaha cid walba Yusuf ka hadashay qof walba buli karay everybody mid dhintay iyo mid noolba wuu buli karay marka taas asaga dhinac baan dhigay oo buug dhan baa chapter dhan oo buuga aniga noloshayda aan ka qoray ku saabsan oo la yiraahdo aniga iyo Yusuf chapterkaas waxa la yiraahdaa aniga iyo Yusuf buugayga waxa la yiraahdaa wax kastaba ka dhigay because waxa maray hagardaamooyin badan oo kaligayna la tacaal ninkii markaan keenay oo ila joogo walaalkay magac kale uu yeeshay magac kale isku dhiibay magac kale uu baxsaday anigana wadankan sharciyan ku keena isna wuu isdhiibay ha sharciyan ku keena sharci marka qofka ku keento waa sharciga raaca dan wuxuu noqday nin cusub ana ma oge bas aniga waxaan ahay gabar walacna ah oo ilma caloosheeda galeen financial difficulties iyo maaliyadii soo galaysay ku maareyn lahaydna ay adag tahay tan waxaan noqotay shaqadii haday tagtana aan arxan ku haysan arxan waxaan ku haystaa walaalaha ila shaqeeya ma Cabdisalaana ma maxato cawka Allah u naxariistay ma Yunus badana markaas wuxuu jiray Soomaaliland ma aadan nuuxdula ma maxato Saciid Cali Musa everybody waa ay arxamaya waa walaalahay waa oo Soomaalinimada ilaalinay but this guy not dan urkayga soo weydaaday waxaa gaaray 8 bilood gabadhayda Sulaaqa urkeeda dhinkii guriga ii fadhiyo abuse-ka waxaa rabaa gabdhaha Soomaalida oo sheeg waa kala duwan yahay abuse-ka waxa waa physical abuse mental abuse emotional abuse and financial abuse afartaas ugu badan spiritual abuse ajirka anaga nama qosay because Soomaali ba guursanayna ningaala ma guursanayno ya
spiritual abuse wuxuu imaadaa marka oo la sameeyo laba qof oo kala diimo duwan. Physical abuse waa jug iyo jug marka geesa maaragtay daamanka lagaa jabiyo. Emotional abuse waa marka lagu caayo. Financial abuse waa marka lacagta iyo cunada aad guriga soo gashay telefoonka guriga soo gashay telefoonka la qarxiyo oo cunada maxay ahayd toona la misuse karayo oo wax walbaba lagu dheelo. Emotional abuse la dhahaa. waxaa la dhahaa financial abuse. maxay mental abuse na waa waxa weeye marka mar walbaba mentalitygaaga wax adiga ku dhibaaya marka lagu dhaho like maxay ahayd saana tahay oo kulligeed wax fool xun intaas guriga iyaga socotay. maalintii dambe waa baxay 8 bilood ah wiilasha ila shaqeeya hadday maanta kuwa nool dhagaysanayaan barnaamijkayga way ogyihiin wayna xasuusan doonaan way fasaxayaan kan sumeelahan oo meesha madaxda ka ah BBC waxay qabtaa sharci policy la dhahaa flexible working ilaa hadda waa jiraa sharcigaas qaasatan markaas waxaa talinaysay xisbigii Labourka wuxuu aad xil u siin jiray familieska flexible working that means waxa waa gabadha shaqaalaha ah oo UK ka shaqeyso in ay shaqeyso xilliga ay iyada shaqada ku faraxsan tahay. That's what means flexible working. marka flexible working ki asaga aniga flexible working ka oo aan aniga sameyn karo waxa waa in gelinka hore la igu qoro shaqada laakiin gelinka dambe la iga daayo. Sax. But this guy oo BBC xukumayo waxa ka ahaa wuxuu igu qasbayaa inaan gelinka dambe ugu qoraya shaqeeyo shaqada saas soo gala waay isagu wuxuu eegaya xilliga adiga ku dhibaya because jadwalka shaqada asaa qoraayo soo ma haduuna isagu qorno secretariat qortana asaa amraayo soo marka maxaa dhacayo aniga foldid ahay lugaha ka barbarsan ka waxaysan wiilasha kale waxay dhahayaan aadan nuux dhuule iyo cawke iyo cabdisalaan iyo aamin abaay adoo sidan ah anagu reeraan leenahay maaragtay ma ku fiirsan karno anaga shaqada ka qabanayna bax bashaara ma baxay because daan baxo abuse kale aan aad guriga igu sugaayo ma bixi kari I just cannot go home. da waxaa joogaa toiletka galaa musqush suuliga galaa muraayada isku eega muraayada la hadlaa that's where it come from saaxiibta muraayad. It was me the one who was talking to the mirror. qofka la hadlaayo muraayad is me. It's wixii igu dhacay waay wixii aniga soo gaara waay wiilasha baxay ay dhaheen ani ma baxay because daan baxo oo guriga waqti hor tago dhibaatada baa guriga meesha ka bilaabana ilmahayga oo yaryar waxay ahayd maalin waxa lagu soo abaabay ilmaha lagu badul ooyo ilmaha hadaa ku dul ooyso dhaqankii ay igu jiro wadankay ilmaha ku badul ooyo ilmaha hadaa ku dul ooyso maxay ma waa ka dhimanay ama jiisi wala xilka noqona ilmaha marabina ku dul ooyo and then I have to cry I need some space to cry meela ku ooyo u baahanaa soo masuuliga saaxiib la noqdo marka qof oo soo arko gabar marka raadkeeda soo noqo waxa ku ortaa campinga fadhiisana waa isqarina neefta isku cilna marka gabadhaas baxay muraayada la hadlaa because I'm alone ninka guriga waa joogaa ka cid la dareemo soo waxa u baahanaa marka qof aan la hadla aniga marka muraayada isku fiirnayo qofkii kale taa waxaan u waraa qof kale inuu qof kale tahay marka dambe I gave up. hada ruux baabilo on that time depression ay ku dhacay aniga weligay life kama sheegin حامل أورا لها فول تايم شغالة يقربها 9 o'clock وأنا بوش هاوس جوجو شرع برقبة هذا شغالة جوجيا I have to go back ودنكي برسنة because شرعي مبوحين وأنا بوحس 4 سنة إنا شقيست وأمريكا في شقة كنت ماذا كبعد قاعدنا دقناشو قحوتمية يعني ملي ميجان جلينين dadka qaxootiga waa dadka la magan galiyay oo wax kasta la siina guri la siina cunto la siina everything la siina I can't ma hooyada iyo ilmahayga ka soo tagay inaan u daraaraba haddaan baxo waxaas oo dhan ma imaanayo Soomaalida arka waxay dhahay ma shaqada iska joojisid ma markale isdii farmaalaha soo qaada ma isdhiibtid how hadda isdhiiba aniga kow ka soo bilaaba sharaftii sumcadii iyo wixii ani intaas aan ilaa iyo xanaano caruur aabay ugu dadaal aabay wuxuu igu igay ano shaqada ugu sareysa isteena iska baxo ma igay nan abaa waxa nuusada depression ay ugu dhacay ana ma fahamsaneen xilligaas
gabdhaha i dhagaysanaya dadka i dhagaysanayana inay ila ogaadaan aan rabaa mental health immunity ma jiro jir difaac male mental health marka kugu dhacaa waa kugu dhaca xaaladaana keenayso iskagama kaa dhacaayo depressionka marka igu dhacay dan waxaan jeclaystaa inaan nafta iska jaro I want to commit suicide 8 months uur 8 bilood aan leena isdilaa rabaa nolosha dhan aan nacay ma lahayd marka cid kugu dhow oo saaxiibada ama ehelada ood aaminsanayd ood u sheegaysay guriga ka haysatay friends ma qabo gabdho Soomaaliya ii dhow waan aamini karin ma gabdho Soomaaliya ii dhow ayagana marka hore waan ka ilaalinay dhibaatadeyda because abaa aanay dhaqanka waxaan ahaa gabar dhaqanka ku dhagan reerkaaga wixii ka jiro banaanka ma loo sheego hadda waxa iska dhaafay television-ka sheegaya I don't care wixii la sheegayo wixii la sheegayn bas ma rabo inay aniga ugu jiraan 24 hours ma rabo okay maalintii aan rabay inaan isdilo marka maxay sameeyay temple meel la dhahayaa jirto laba station Holborn iyo temple bushaas u dhawa Holborn marka meel la iska tuura ma laakiin temple jidka hadaa goyso river Thames ku yaal wabiga Thames dabaalna ma aqaano ani I want to waa ogahay inaan dhimanayo biyaha isku tuura way dabaaladka ka baxsan ma badlihidba ماشي دربي استاج انا استوران ربع لكن على شيء سائد ودير ساعه داندو على شيء حنون سو قد كري قاب كاسكو توري الحياه كفكره مرك بطل واي قدمات انا استوران ربع I want to die ولقى اسم الهين انا استشوك فكرته مرحلة سجاري دونتا حنون كان كينا إنا حنون سنة المؤك وقت بماله ذاتك BBC كشقي كل جود وأقول تايم ماله وفسح سندات كانت قاعدة نسا فسح سندات كانت قاعدة نسا بس بركي الصومالي ما فسح سندات هدان قاعد تحت صدق حدان عنق إنن كان إسكا جم تيجي كرو جبر أجر تحتها هبروها مركز أنكينا أجوكت إلا بدأ سقوط رأي كي كلنا على شاكوستا هدان تجاينا باسبور أكو بحم مقبة because I am not British ما هنا حتى residence indefinite leave to remain حتى ما است باسبور كي الصومالي وده كامل لا أقول سنة وده كي أفر لا تسع وإيش عنايا ماشي أتشوكتي ده no hope no رجل أمين ماشي أتشوكتي ده BBC ده دبعت ده وهو بدني كاغا صوته يوسف قراد من سنت هاي إنه هذيك الشخصية سيجارة كوبك سنة يمس أنت الله كل ما يبورياش كسر شقي BBC ده دبعت ده أنت وهو بدنك كشيء جانا أنا أرت يوسف لما ده كشيء جانا أرت أنا جا دبي عدي بس السيجارة هذيك اللي كوبك سنة يلا من سنتين ما ضد كم معاه هرت دبي عدي إذا لك أنا سيدا لينا وحواي قف كمركو السجل اسمه هديه يوسف أنا مو ملاينا حمانا أو نشأنا تاك وحنا ملاينا ذاك قربها كحمانا إنه يه أي كسدان ما هو والله واحد أحسن سميناه لكن أما أنا غير غيرنا but that time he was very bad he was really very bad وحكا قدر أنا جبرة هاي هالك جبرة مركز جوكتا جبر كلا جوتو ياسمين لا ده جبر كلا كاتل ده هاي كذا الكلمات وحاسون الناس كنا قفك فول بروديوسر كأ جوكتا قبله هرا كلنا وابحين جواهر سليمان فيلم سبب كله وابحين قفك جوكتي أو هالك جبرة أو عد كذا أطلع مقلاي فيقدر ند وحيهد لباحة هاي مركز بنانك إيجا مقلاي because they don't know إذا كان هذا جالسين سن ما أقدر وحنا كسرنا أنا كم هذا كي كده جالسين أنا قاعد نحدا كده مناي because abuse كوكو سعده يبلون كوكو سعده قفك فيه قفك مركز شغالة لقوا بلوسة أو جورجس الدجنة قفك وأنا ولا كرا جورجس صدق لكن لا بديبا لكن مركز جورجنا لقاه هيستو بلاي كايستو شغالة بلاي كايستو ما أكو سبب جروبي سامله ما فهمت أول كهرنا ومدى لأن المراه وروريجو قف وحود على تيم وقتها أبغى ومدى أنا قدرت كأن بغسنا يقدم بس أنت هالصار ما أنا أركح ما أقوم مغني لكن ما بأركب بقى أوكي أمينو أدن كارد حكلو BBC ده وحن حسوستا ضد بدن وضد كات سلسو شقيسينا إن اختيار بدن أنا شقيسنا يوم كم وأوجاين أنا وشيء حتى كل أجنبي قاعد أنا قاعد بيسكلا وهاي شقة دبعت هذا سلوى وجاين تنسك ويديني وحويا أنتو ده بدني تيجا مدى يا بنا نرن أنتو ده بدني دواني أهيد با
Somaliland iyo waqooyigan idhaahna bay ka soo jeedeen iyagu waxay iiga sheekayn jireen inay aaminsanaayeen inuu Yuusuf Garaad hab markaa hayb sooc oo kale ama kala qaybin oo kale uu iyaga si gaar ah u cadaadin jiray u beegsan jiray adiga hadaba aamina ahaan haddaad Yuusuf Garaad sida dadka la isugu tiriyo magaalo ka wada timaadeen oo waliba iskuna dhowdihiin ba hadeen toos u nidhaahnaba ma u malaynaysaa taas inay waxna ka badbaadisay ama aad wax at least dadkan wax dheeraydood wuxuu ku dhaantay oo adiga ku naxariisan jiray abaayo iidoo hadda hadalka xumeys iyo maarata ugu roonowba ayna ahayn magaalo iskala imaateen le ma noqonayso marmarsiyo excuse ma noqonayso Yuusuf Garaad muu malaynaa inuu xamar ku dhashay inuu beledweyne meelahaas ku dhashay marka hata ka dhigba inuu ku dhashay laakiin kuwa waqooyiga hadday u arkeen in la haybsoo aqoon gaar ah aniga asaga isku malayn walaalkiisa aqin asaga ka yar isagu waa naga weynaa hortaan iskuulka baxay oo midda kale qof khasa dabeecada jirto qofka kale ku darto Yuusuf dadka baxa oo baararka la farfariisto oo raaca anay ma ahayn أنا وحنا قبل مروة والله قبل مرنا وحنا single mom قرابة أو المهدي قفك لعبت وجوه يسي ربط إنه تيكسط أو المهدي كسوك حيسط I don't have time مهين إن أنا يوسف كرع راعي رستوران كلا فريست يوسف إلى لنا ضدك أسقى كده بدو كده أنا وحنا إلى لنا شقديده أنا وحنا إلى لنا إنه باص إيه 8 hours كبيبي وشقينا بس سدرمت أنا تاسواي waxa aniga aan kasoo jiito asaga u raaco meel cabitaan kala soo cabo baararkeen night club-yada wuxuu aadi jiray jaclaa u raaca aniga ma ku jirin I never been night club I was fanaanada ah laakiin never been night club weliga ma tagin aniga night club so aniga marka saaxiibtinimo kale aniga isaga igala dhaxaysa ma jiro laakiin suuqan ku dhameey aniga taa u malaynaayo waay aniga la buugan ka qoray arintayda taa u malaynaayo waxa waay Yuusuf dabeecadda oo dadka dhan ku abuse gareeyay oo aniga ugu abuse gareeyay laakiin aniga degree fara badan aan dheera koow gabar aha laba waan ka nuglaa saddex wiilasha ila shaqeeya waxay ahaayeen dad asaga shaqada kaga soo horeeyay laakiin aniga waxaan ahaa asaga shaqada kaga dambeeyay Soomaali badan maadaama barnaamij Korea la Soomaali badan ay aaminsan hawiya la soo qoray Yuusuf Garaad iyo hawiyiisa anuu ma aqoon waligay markuu uu bahalka dhiganay ma garan iska dhaaf asaga qabiilkiisa aniga qabiilkayga ma garanay mana aqoon gaar ah uma lahayn Yuusuf aniga ma fahamtay aqoon gaar ah uma aanan lahayn saas la ashrigat waxyaabaha quruufaadka ah meelaha la wareejinayo ma jirin waxaan calafaa ii galay waa aniga idinkaga soo sheekaysaa ku hela calafkaasaan ilaahay aan uga abalhayaa ما فهمتي إن تو إمرسي مركي أنا فيريو إيه وحي ما ركت وناجا هاي أشوفه دونا إن حتى somehow حتى هدو دونا somehow إن وناجا الله هاي تو إمرسي كذا هي abused me هي بلن مي أنا جا هو يبلي كره يوسف سعده يبلي كره سو التلفزيون ما سو وطن بريتش مجوجنا أو محكمة بحاجة كفرنتا لا تكره يقول ما دعويش it's not that easy it's not that easy because wuxuu ku buli gareynay waxay ahayd powerka BBC da ay siisay hadda waa kaas waxa yiraahdo hadda bal waa kaas waxa ay dhaho oo raggi kale oo jooga oo nafta u keenay Cabdisalaam Hareeriye waxa dhaho ta ana weligay ilaaban waxa markii Oxford University nalaga casuumay oo Cabdisalaam Hareeri ninka la yiraahdo maxaa la dhahaa wasiirka markii dambe noqon jiray Cabdiraxmaan Caynte dad fara badan Mary Harper gabadhan mar walba Soomaaliland tagto buug Soomaali ka qorto kulina macsuud aniga waa la xishay waxa ay xishay xafiiska Ingiriiska oo markaas Soomaali inuu u qaabiyo markaas xafiiska la sameeyay ya UK oo xafiiska UK ka furo oo Soomaalida arrimaheeda qaabilsan markaas la furay dadkii laga la tashanayeen ku jiray waa la casuumay because waxa la casuumay jaba ay maqleen dadka waa ka dhaga dheeriyeen dad aan casuumaad gaar ah la soo diray wuxuu isku dayay inuu yimaado casuumaad waxa lagu yiri ninka dhan la rabo inuu ogaado waxa la ogaanay how media kaga qayb qaata sidee media kaga qayb qaata dib u dhiska dalka iyo burburinta sax ya sax ayuu ku saabsanaa workshopkaas Oxford University lagu qabtay inta Soomaalmoodan jirna waa ninkii inta telefoon markuu asagu meel ka soo galay waa wiil kale walaalkiisa oo soo iska wariyaa Ilyas la dhahaaya imaaday anigu xumaan hadda wiilkaas ugu sameeyay ma jirto laakiin Yuusuf markii inta isoo wuxuu BBC afkaada kuma hadli kartay BBC halkan ma joogan ku aniga halkan BBC ma joogaba myself aniga personally la casuumay haday weydiiyaan sida meesha looga dhaqmay dawaa sheegaya
markaa soo noqday waxaa ii diray wax la dhahaayo qofkan macnaha shaqada ku xadgudubta camal markii aan guddiga u tagana wixii waa socon waayeen waa fikiray markii mataqaana how many times aan qoro warqadeeda iscasilaad oo aan gudbin aadan nuux dhuul ilaaha qaarso twice asaa iga celiyay aadan ilaahay qaarso maanta waa nool nin xataa qabri ku jira marqaato ma soo qabsanayo asaa iga celiyay waana hayaa warqadii koobigood oo dhan and I will print it out on my book noo ku daabaca wuxuu ugu yiri aamino ninkan BBC ma leh asaga ma laha adiga gabar shaqaysata xaaladaha aad ku jirto aad ku raato single mom inaad tahay waxa aan ognahay ninkan dartii shaqada uga tagay shaqada hadii laga tagaayo ama waa laga wada tagaa shaqaadna ka tagay ama asaa kaligiis tagay markii dambe dhacday adigoo wada dareertay somehow ilaahay iridu furi doona abay laakiin aniga ma joogi karin ma adkaysan karin ma karatay aminoy waxaan ka maqlay qaar kamid ah wariyaashaad isla soo shaqayseen aad baan uga xumahay inaan intaas oo dhan aan kugu celiyo arrintan waxaan ka maqlay in adigoo Luton degan oo aad uga fog BBC-da inuu maalmahan tareen ku shaqeynay sida Sabtidii iyo Axadda uu kugu khasbi jiray shaqada kugu qori jiray iyadoo Ilaahay naxariisto uu ka iyaagtan deganaayeen dad fara badan ay u dhawaayeen oo waliba ragihii uu adiga ku dooran jiray si uu kugu ciqaabad Luton uga timaado horta wax yar waxa waa Luton waxa u dagay waxay ahayd aniga markii aniga aan ninkii kala tagnay horta waxaan gabadha 27 jeer 27 jeer maxkamadda Ingiriiska la geeyay idoo ninkeedu dacweynay ah yani ninkina ma ii qabin waa ifray uu dacweynaa because markuu dacweynayo he has another name another wuxuu magac kale blade of birth kale waxa kale inaana aniga shaqaysan nolosha ciriir iiga dhigo ilmihiisna aniga korinayo ma fahmid ani struggle badan aan soo maray magaceeda waan ku talagal maanta inaan sheego struggle-ka aan soo maray wax la qarinayna ma ya okay xumaan uma qabo ne Yusuf aan xumaan u qabin kanaan xumaan u qabo but my life markay tahay qasab waay my life illa sheegay in la qoro kayd noqoto lagu waana qaato gabar kasto aniga iga dambaysa oo sideedoo kale ta mudan doonta waa hubaa inay mudanayaan waa hubaa kumaan kun inay haddana mudan doonaan ma garad 27 jeer aniga defendant af Ingiriis waxa lagu dhahaa maxkamadda markii lagu qofka dacwada loo haysto oo isdifaacay qareen ma awoodo because ilmihii aan dhalay aan ka bixinaya kiro aan ka bixinaya naagta gabadha ii heynaysa lacagteeda aan ka bixinaya waxba aniga xataa dhar fiican ma gada karo by that time ya markaas waxa lagu dhahaa mushaarkaaga kor la fiirina legal aid xaq ma u lihid maxkamadda markaa kugu saaraya 7 qadar kale isaara waxay taa maxkamadda sharafteeda Ingiriiska maxkamadiisa sharafteeda hadaad ilaalin dambi aad lahayn xataa waa lagu qaada inaad dhar suud madow gashato oo isdifaacdo muxuu markaa Ingiriiska aqoonina isku difaacay noqotaa because qareen ma yeela weliga qareen ma yeela maya aamino saashadu waxay tahay isagu muxuu maxkamadda 27 sababta maxkamadda waxa waay ilmahayga ima tusto ninkii ay dhahay adu markaa mid u diidaa goormuu rabaa inuu arko laba maalmood week maalintee 3 axad haw yimaado ma imaanay ilma ma rabiyo anaga waa la rabaa believe me ma ilma laba bere markuu u yimaado asaa maqnaaha maxkamadda maxaa ku qoran maxkamadda kood oo dhan soo saaray maxkamadda amar maxkamadda soo saar waxa ku qoran hadii labadiina mid kamida uu jabiyo go'aankan waa inay halkaas ku istaagtaa oo maxkamadda la soo noqdaa sababta 27 jeer maxkamad la taaga waxa waa laba bere markuu ilmaha wado oo maqnaa ma rabiyo wuxuu rabaa inuu guriga soo galo oo sida berigii oo aamino qabo kale shaah cabo oo lugaha kala fiirsado oo musqusha iska galo oo iska soo baabaashaan oo xagga ku dukaanay adaga ajnabiyan kale hani adaga isku hormarin marqayn dhaqan diinna maaha dhaqan Soomaaliyeedna maaha isku hormarin marqayman abay caruurta say waa raayaan adaga saata tahay inay ma bii qabtid caruurta say waa fiican yihiin haddii aniga aan nafteedu u yaabo oo arko inay sakaraadahan dhimar raga badan anaaba dardaarmayo dhahay ninkaas dhalo meeshaas degan hala siiyo ilmaha ya laakiin ay hormar marqaysa ma ah ka 27 jeer maxkamad Ingiriis liigay anigu qofkii wadankan wax keena sharci buuxa leh anigu lay magan gelin asaga because magac markuu isku dhiibay qaxooto iska dhigay oo tax payer oo canshuur bixinay aan 27 jeer aqbalay si aniga Soomaalnimo u ilaaliyo aniga waa dacway kare waa dhihi kare this guy wadankan waa keenay magacaas I will never ever say ma dhihin aniga adise ku garaweysa marka aniga inaga dhalin badan tahay ma aan ahayn ku garaweysa maxaa aniga inta tura maaha ninka duu kugu xumaaday labadiina la isku makiin turin abay hooyadan ma dhal Soomaali Maxamed isku tiin Soomaali Samatra Soomaali Farax whatever you are but laakiin waxa ixtiraama waxa waa marka Nasri Salman iyo Sulaaqa bari ay weynaadaan sida hadeer oo kale
ya habarteena adoogan xirta leema la dhahayo absolutely I don't want that because hooyaday aabay si kasto isu khilaafa habartay adoogay ma xirin maxkamadda qoyska aan jirto ya sharkeyga noo cadaada rabaa maxkamadii aakhirkii maxay kusoo gabagabowday ma sababtaad markaa ugu maxkamadda waxay kusoo gabagabowda marka la arka mar walba inuu igeynayo oo ilmi ima tusta leeyahay ay waxay leeyahay in la yiri gabadhaan la xaal hadda kadib maxkamad haba keeninba ha imaanin maxkamadda gabadhaan la xaal waxba kuma diidan gabadha ilmaha waa ku tusay anna maxaan sameeyey meel waxaa jirta guardianship la dhahay oo ilmaha lagu haayo aniga ninka shalay idoon waa u sheegay xataa abuse-ka ninka shaqada igu hayo waa u sheegay waxaa walaalo aniga labadiina ninkaas shaqada unbuu madax ka yahay adaa iga xiga adigu hay abuusin adiguna hay igu dar inkii kala meesha ii fadhiye laba abeeso aniga midna shaqada ii fadhiye midna waxaaga maba noolaanaye wii maqli waaye waxaan ku iri marka adigu shal haddaad aniga ixtiraami lahayd ood ii naxariisan lahayd maanta aniga maxay toon kaama fogaa aniga waxaan sameeyey saanan depression dambe iigu dhicin saanan river Thames dambe webi dambe isku tuurowgiisa iigu soo dhicin saanay balaaya iigu soo dhicin waxaa sameeyey inaan arag inta ilmahaygu koraayeen inaan ninkaas indhahayga ka qariyo oo ah meesha caruurta lagu haayo u geeyo ilmaha 2 hours lacagta hadda qaybteeda la baxo asaa hadii wax laga qaado ha laga qaado maanta oo social service geeskaas fadhiisay baldheer ilmiyaas loo fiiro hadda reviewgii wixii la qoray maxkamadda lagu celinaa maxkamadda waa akhrine waxay arkay wax dhibaato oo meesha aan ka jiraba inayna jirin maxkamadahan abaayo qofku markuu isagu ku dacweeyo oo legal aid iyo qareen free yahay dadka canshuurta bixi lacagtooda waay waxaa lagu arkaa inaad public fundkii dadkan wadooyinka loogu dhisi lahaa waxbarashada loogu kaalmeyn lahaa inaad wasti garaynayso ood khasaaranaysaa lagu arkaa mala ogola marka dambe waxay noqotay gabadha la xaal ila yaraa gabadha la xaal ma meeshaan ku arkay abo maya gurigaan ku arki maysid baraf hadow da ay xataa inta ku arkay waxa gooy guriga ugu arkay guriga anaa degan aniga degan isma qabno marka inta xumaan imaan lahayd magaceedii ilmahaaga intay yaryar yihiin adigana maaragtay emotional aad tahay oo wax kasta aad gocanayso isbata inaad aragba ka habartaa maaha adoogaana maaha waa ilma isu dhasheen waa xumaada xiriirka soo maaha kumana ixtiraamayo wadan shisheeyaa joogta xaq waxaa u leedahay inaa isdifaaciisa marka maxaa waaye inaa avoid garayso inaa aragta asaga ilmaha laaka xaqi u leeyihin soo ilmahayga way ku koreen way arkayeen aabahood halkaas ugu geynaaye marmar guriga ugu imaanaya waa wadaay marmar guriga ugu imaanaya oo fadhigo la fariisanaya anigana qolkeeda aan ku xabisanahay bas ninkan aniga ajnabi aan kalana aragtida intaas oo dhan oo dibsanaysa waatay hadan markaan dib ugu noqdo maxaa waxaan la isweydiinayaa okay suicide iyo reverse teams ba taagnayd Soomaha maxaa ka istaajiyay oo farajkii ilaahay ku soo diray ka joojiyeen ishaligtood dhibaataysan xumaa wax badan abaayo horta nolosha adiga ku soo marta marka nolosha adiga wixii ku soo maro wixii aad ka ku soo maro of course waad gocanaysaa waad ooyaysaa saa hadda sameeyo kale laakiin waxaa rabaa in adiga waxbarasho ku noqdaan inaad adiga ku aarsato inaad adigu maaragtay ku dagaal tagto dambe lama rabo aniga dhibkii waa ka baxay hadda dhibkii aniga waa ka baxay Yusuf garaadnay ma abiyuusay oo ima bulay aamin waxa sheegay habeenkii isla xilligii meesha aad taagneed maxaa kugu kalifay inaad joojiso go'aankii ahaa inaad wax siiyasho oo shaqada daqiiqadaad meesha taagneed isla hayd still markaad isla hayd still daqiiqadaad meesha taagneed oo wadiga taagneed maxaa ku bedelay ka joojiyay waxay bedelay horta ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa ay dhinay adduunka intaas waa ka goyn doontaa dhexe adduunka waxa ay dhinaa nolol baa ay dhinayd adduunka anu markaas aan wareeray oo aan halkaa taagnaa oo aan rabay inaan boodo waxa horta idaahiya qaabka u booday because calooshayda aad ay u wantaan qof culus ahay sahalku ma kori karo meesha but I wanted to jump whatever happened say dantaba ahaatee waxa ay joojisay gabar markii dambe ay sheegtay inay Jarmal tahay oo dalxiis ah af Ingiriisi gaja taqaano ayaa waxay ii weydiisay halka uu ku yaalo tiyaatar hebelow tiyaatar adiga bushaas ka soo horjeeday attention-kayga soo jeedisay marka halkii adiga aan ku talamayay see u boodaa attention-kayga soo jeedisay gabadhii way ogaatay inaan ooyay aragtay waxay weydiinaysaa waa iska dhaafta garabka iga qabatay qofka yaqaanay meesha waxa ku yaala meel oo dalxiisku marmaraan waa kuraas la fariisto oo webiga lagu sii jasto qofku oo webiga iyo doomaha iyo daawan kara ku yaala kuraastii fariisisay
kabacdi waxay igu tiri do you want tea waxaan ku dhahay high blood pressure aan qabaa tea ma cabi karo iyo coffee laakiin dikaaf aduuyaha malaha waa iska cabi karaa man coffee neera ku yiilay stationka temple geeskiisa aan tagnay way fadhiisisay cabitaankii ii gaday danna waxay igu tiri don't do something stupid waayahay anigana bartaas meelaan ku tukan kara maaha laakiin bartaas waxaan bilaabay astaqfirullah ilaahu cafi laakiin ooyintu waa socota ooyintu waa soo badanay because maaha kaliya inaan saad ka ahay isboodidii laakiin waxaa haddana saad ka ahay sababta aan ugu fikiray inaan isdilo anoo qof muslima ah dan nolosheedina dib usoo xasuusta yaraanteydii hooyaday aabahay walaalahay wixii dhan ay soo hormarmaraan daatana aan go-aan qaata ah inaan go-aan gaaro go-aanka soo gaaraya marka guriga haddaa tago aniga ma nasan karo go-aanna ma gaari karo hoosteedu ka dhalanaa shaqadina waa iska soo rabaxay taa maxay noqotay waxay noqotay inaan black-cabka waa lacag badan yahay idinka waa ogtihiin inaan black-cab kiraysto oo waxaan deganahay faynus daris camal ahayn markaas waxaan deganahay Eastham aan deganahay meesha kow faynus ku arkeen wadanka ka bacdi inaan black-cab kiraysantan black-cabkaas ku jiro waa ooyaya maanta ninka wuxuu leeyahay biyo ma ku siiyaa maya xanjo ma ku siiyaa maya aan biyo xanjo maan rabaa inaan go-aan gaaraa rabaa intaas between meeshii aan ka raacay ilaa iyo gabadhi kafeega gadaysa iyo wacday iyo waciriye ilaa iyo Eastham oo fogaan dheer ah oo tarankuba u soconayo saacad ma aragtay wax la jira intaan sii socda waa go-aan waxaan gaaray instead inta aniga isdiri lahaa labadan nin ina ayaga ka takhaluso kee sahlan marka kan shaqada BBC u dhiibta aniga ma ka takhalusi karo laakiin kan waa ka takhalusi karaa kan waxa waa guura isku keenhay guurka duu dhamaad meesha ku dhamaada waa mid markaan imidna wixii oran jiray markuu yiri waxaan ku yiri sidii hore maaha so from now on afkaaga 2 liira saaraysa ilama hadlaysta aniga isla markiina waxaan wacay yellow page-ka waxaan ka wacay locksmith qolka fadhiga ayaan u samaystay qunful si aan qayladiisa barriiqiisa uga badbaado marka masquul hoosaa ku taala guriga laba masquul uu leeyahay guriga qaybta kore ka degan oo baan ku yiraahdo qaybta hoose ka deganaana halkaas bay iga bilaabatay marka inaan xanuunsanahay ma xanuunsanahay xataa ma laakiin aan takhtarka u tago inaan wax u sheego dadkii horta Soomaalida marka u sheego waxa lagu takhtar isku tagin takhtarada isku tagto oo la ogaado waxaan ku hayaa u sheeshato gaalada ba imaanaysa ilmaha laga guranaya horta marka dambe go-aanka waa gaaran la inaan takhtarka u tago laakiin goorma u tagay weli anoo xanuunsan gabadhii dhalay waxay u tago markaan dhalay kadib waa la ibaaray waxaa la ogaaday depression inaan qabo dawo inaan u baahanahay in la isiiyo canugtina aan naaska nuujinayo anoo canugta naaska nuujinayo inaan daawo qaada karin dan psychologist la ii diray anu luqadii waa aqaana oo qofka tarjumaad ma u baahnayn sirtayda xogta isaas ku ilaashan tahay marka inkastoo qofka tarjumaada xataa hadduu Soomaali aanu sirkaa bixin karaynin oo isma garanaysaa ma fahamtay dadkuna may garanaynin halkan waa BBC lana maxay too ka dhagaystaa hirka gaagaaban wajigaaga qofka ma arkay I don't know waxaan ku suganahay aniga oo karatay marka waxay noqotay in la yiraahdo gabadhina nuujinaysa mise waad ku faraxsantahay naaska goyso maxaa aniga gabadhan ina nuujiyo gabadheedu waa rabaa qof shaqaalaha ka maqanaan haddii aniga aan xanuunsanahay oo aanada iska siina okay kaniini la ii qoray oo aad u milligramkiisa yar yahay dan waxaan bilaabay inaan caafimaado wadii qaadat inaan caafimaadaan bilaabay marka waxaa adiga ayaa go-aan ma gaari kartid depression markaa qabta astaamihiisa waxaa kamid qof go-aan ma gaari karo qofku maanta dhan isku wacyaaca maanta dhan waa oynay maanta dhan tiir fuulan go-aan ma gaaraysid go-aan ma gaari kartid go-aanka kaliya gaaraysa waxaa inaad isdisho markaa rabto taasaa adiga gaarsiisay mana isdirin alxamdulilah allah ma iga soo badbaadiyay waa inaan markaa aniga maaragtay noloshayda maaray maalintaas noloshayda majaraha u qabtay magaceeda maalintaas ayaa gabadha umusheedii markii aan ka baxay oo aan dhalay aabo intaan la hadlay aabo markaas allah naxariisto noola America u socdo laakiin wuxuu joogaa Nairobi aabo wuxuu ugu rimaanday diinta islaamka ma ogolo gabadha oo maaragtay nifaasku ka socdo in la furo waa in aad sugtaa intaad ka daahirsato waan sugay aabo wacay waa la iga furay هذا لقى بالله وقبضان وكافرن تحت أصدقك وحوق الشاكية أنا ما فرن إيه رجعت ويان إيه وحس مجران لكن رجعت وحيرا مجران
rajactu maxaa la dhahaa meel hoogan naar maa ku noqonay ma ku noqonaysa rajactuduna waa in la isla ogolaado sida meherka la isla ogolaado kale la isla ogolaado waa sidii mana hadda iyo marka dan amina hadda intayna niman haddaan kugu celiyo su-aashan markii dhaweyd ku weydiinayay ma jirtay taan inaad Luton adigoo degan shaqada cadaadisku heeray gaadhay in axadaha lagu yiraahdo soo bax Luton ha hadayna waa sheegtay ana ka boodo abay Luton aniga horta waxa markii hore u dago waxay ahayd guri blasto ku yaala markii anaga lugay isku toosay guri blasto ku yaala mortgage ku qaatay si aniga la iigu keeno hooyaday iyo caruur kale oo iga maqnaa labadii inana soo dhalay inan kale walaashay dhashay iyo hooyaday maadaama markaas maxay to aabay wuu dhintay aabay markuu dhintay hooyaday waxay maaragtay ay u joogtaa malaha ilmihii kalena ay dhoofeen marka haddii aanan laba qof oo wada shaqeynaya aad ahayn home office wuxuu kugu xujeynayaa xagee dadkan dejinaysaa marka waxay noqotay inaan maaragtay aniga gurigaas 3 bedroom oo blasto ka gato mortgage ku qaato ka bacdiina hooyo aabbo hooyo caruurtu dacwooda oo la ii keeno kadibna aan mortgage ka baxo because ma awoodi karaayo 7 caruur ah iyo hooyaday marka aan wax lacag aan qaadan aan dependent ugu ah mishaarkayga ma awoodi karaayo marka aan mortgage ka baxo marka saa u helo guri oo waafi ah oo nagu wada filan hooyaday qolay igu dukatay masquul gaaray wax kasta heli karto saa u hel ayaa anaga horta Luton ugu guuray marka Luton 32 kilometer ay u jirtaa Central London mile okay Lutonti marka ninkii qabay aniga markaan dhibaatadii maaragtay odagii markaan soo kala baxnay ka shaqada haray ka shaqada sida meesha uga socotaa anina mar raba in kaniin dambe la ii qoro then again I got depressed hadana again xanuunsan only Yusuf Garaad dartiis markaan ma ku jiro ninkii waa kaligii oo markaan Luton wixii ximaaday wuxuu kugu sameynaa waxyaabo oo emotional abuse waxa kamid ah oo kale barnaamij oo keensanaysa waxa laga barnaamijkan intii xasuusta barnaamijkan la fiidso oo fiicnaayo universal u bilaabi jiro kadib dhowr ka waxay raadiyaha u rabay magacu sidoo hawa u geeyay Yusuf marka wuxuu sameynaa wuu ku diidayaa fikirka 3 bilood kadib oo bil kadib isaga la soo baxaya wuxuu leeyahay barnaamijka noocan oo kaalay samatar la yiraahdo sameynaya war maxaad sameynaysaa waxaan soo barnaamijkaygii maaha soo anigu kuma keensan haddii la sameynayo anigu inaan sameeyo ma dad badan ay ku dhacday Cabdisahareeri way ku dhacday waa ogahay aniga marqaatiyanka way ku dhacday bas Cabdisahareeri wuxuu ahaa wuu furfurnaa wuxuu ahaa nin creativity-giisu fiican tahay nin maxay marka wixii uu la yimaado marka saas lagaaga celiyo oo qofkii isla soo taaga maxay taas what is it Yusuf Garaad dadka ma dilaynin laakiin waa qayb kamida ilaa markii dambe oo gaarsiinayay dhagas Yusuf baaskayga tahay waa kugu ixtiraamaya taas laakiin hadda wixii ka dambe no verbal communication aan adiga nama dhexmari karo Luton ku soo harto Luton aan deganay uu ogyahay sabti axad railka waa la dhisaa biraha tareenada waa la dhisaa tareenadu saani uma socdaan sabti axad meel walba saaska tahay London sabti axad ugu qoray shaqaale kale aniga ila mid oo ku qori karo oo maarata meel bush house u muuqata degan waa jira ana ugu qoraa ana taraanka aan soo raaca hataa hadaan alla ya nafta ku dhanaan sii raacba ma aha maxaan sameynaa marka jimcaha markaan ogaado sabti axad ku qorana masaajidka seexana weligaa ma maqashay gabar BBC u shaqaysay hay'ad noocaas oo kale oo masaajidka seexayso masaajidka marka xagu masaajida qolal laba qolo masaajid oo mid rag ku dukadaan mid oo bush house ku dhex yaala because aniga inaan shaqeeyo waay ninkan hadii kale uu igu marmarsoona shaqada la iga eriya ma shaqeyso haduu ku yiraahdo ku dhamaatay ma tagala oo soo maqlee soo ila xukunka u dhiibatay ya qofku markuu meel kaaga adag yahay nacasna yaa doqon yahay sinana uga baaqsan maysid sinana inuu ku dhibaatay uga ma baaqsanaysid ya intaan barkan soo qaatay oo waxaaga soo qaatay ku beertay yar hoogsado ayaan anigu masaajid ka dhigtay oo qof salaada tukada ahaaya salaadeeda markaan tukada cishaha oo dadka dhanbaxaan masaajidka seexan jira aniga si aniga shaqadaas aan u beer dareynin oo shaqada sida iga raba uga soo baxo ilaa ninkan xunka in xariisan maayo Soomaalinimana iigu turi maayo boosnimana iigu turi maayo wuxuu iigu ma ogaayeen shaqaalaha BBC da shaqaalaha ila shaqeeyaha waa ogaayeen inaad meesha ha waa ogaayeen waliba wiil maxamed Cabdulla ka qaban karaysi wiil maxamed Cabdulla yira oo hadda jooga ayaa nin kale oo Afrikaana oo meel sare xukumaaya markaas ayuu u sheegay wuxuu ku yiri gabadha dhibaatadaas haysata ninkii uu carooday wixii ugu dacwada soo gudbay dacwadii waa gudbiyay waxba waa sameeyay waxa jirtay gabar kaari balaag baan la dhahaayo oo intay depression noqotay isdishay hada xasuusato oo madaxa la ahayd African and Middle East ninkii maalinta uu tagay tusaale soo qabtay waxaan ku dhigayso hadda ka hor
I try to kill myself hadda mar labaad ma raba inaan isdilo markan dambe on depression noqonaya asaga abuse-kiisa nin ma jooga markaan waa Yuusuf bas waxaan daawo qaadanayay 9 bilood and then hal bil sanad iyo 2 bilood daawada ugu shaqeyn laakiin 3 bilood dambe daawada laga yareynaa because side effect-ga daawada ayay iyaduna dhibin maxaa dhacday suuqa ku dhameey waxaa dhacday ina dhinaca midigta ina u socdo oo dawadii dhinaca ka saamayso side effect-ga dawadii dhinaca midigta u guraa oo Yuusuf shaqooyga rabaa si kastaan dhawaa jirana qolada waxa dhakhtarku kuma siin karaya adiga inaad shaqeyn karin dhakhtarku kuma siin karaya warqad inaad shaqeyn karin warqad waxa jiro waxyaabo sharci oo asagoo inuu waxba ka qaban karin diidi karino laakiin qofka inuu fasax xanuun aado ma qarin jirna anaga fasax xanuunkayga aniga anti depressant tablets ka soo la igu soo qoray oo kanjil la dhakhtarkayga recordkayga waa haya waay aamina waay adiga shaqo saan weyn oo ka shaqeeyo waay ninkan ku abiso waay dadku ugu waay u sheegay dhakhtarkii ay dhahay amina hadan ku weydiiyo markii dambana abaay markii daawada iyo dhamaata go'aan waxaan gaaraynaa iscasulo okay laakiin iscasilaadaas waxay socotay 8 bilood oo kale iscasulo oo aan ka nasto oo aan bas because aniga asaga ma bedeli karo aniga ninka gurigaygu abuse waa bedelay okay waa kala tagnay laakiin ani Yuusuf shaqo ma ka eri karo qof walbuna abuse ani kaligay ma ahayn laakiin anigu waa ugu nugla because gabarna waa aha maxay ahayd xaalado badan oo shakhsiyadeed oo family waa haystaan wuxuu dhan ogaa inta soo